بسم الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام waxaan isku dayeynaa inaan in yar iska baraarujinno ku dhaqanka shareecada ilaahay subxaanahu watacaala in lagu dhaqmo fawaa'idda ay leedahay. sidoo kale cid kasta oo shareecada wax ka sheegta iyo masiirka ay noqon doonto ama ay noqonayso. walaalayaal waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu watacaala shareecadan iyo kitaabkan inoo soo dejiyey iyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam in ay inoo tahay naseexo. nebigu sal slam wuxuu leeyahay addiinu naseexa, diintu waa naseexad iyo naxariis iyo nasteexa weeye. sidoo kale walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabahan uu ina amrayo iyo waxyaabaha uu inaga reebayaba giddi walaalayaal waxay faa'iido u yihiin makhluuqa iyo dadka bini-aadamka uu ilaahay usoo dejiyey subxaanahu watacaala. maalan markuu ilaahay subxana wataala inaga reebayo zinadu waxaa ognahay walaalayaal ilahay wuxuu leeyahy walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila. marka waa wax xun oo ilaahay subxana watala wuxuu nooga reebayaa inay xun tahay bu ilahay nooga reebaya oo nasabkii iyo faracii bay baabi'inaysaa, qofkii iyo akhlaaqdiibay bulshada akhlaaqdiibay baabi'inaysaa. dad waxaa soo baxaya aan meel ay u nisbo sheegtaanba aysan jirin. sidoo kale ilaahay subxana watacaala khamriga markii naga xanaantiyo waxnu ognahay dhibaatooyinka khamriga sida ognahay oo qofka uu waalanayo, wuxuu doona ku hadlayo, wuxuu doona samaynayo. taasina saa awgeed buu ilaahay subxaana watacaala inaga reebay. marka qaacidada guud waxaa weeye wax kasta uu ilaahayna amro subxaana watacaala faa'iido ayay inoo tahay. wax kasta uu ilaahay inaga reebana subxaana watacaala inaan ka hadhno faa'iido ayay inoo tahay. sidoo kale ilaahay subxana watacaala markuu ina amrayo in aynu tukanno, tusaalahaada balday qofka tukanaya waxaa laga rabaa inuu weysaysto, shanta salaadoodba uu weysaysto, markuu janaaboodo uu qubaysto, afka iyo caday inuu sameeyo, dahaara la amraya iyo inuu isnadiifiyo. ka waran qofka aan cadayan ee aan weysaysan ee aan qubaysan suu noqonaya? bulshada ka cararaysa. islaamku wuxuu ugu yeedhaya marka walaalayaal qof kasta nadiif iyo naxariis iyo wanaag iyo inuu ku noolaado qofkaasi qof nadiifa oo udgaya oo cakarsan oo mar kasta weysaysanaya, qubaysanaya, nadiifa buu islaamku rabaa. qofka gaalka ah ama shareecada diidani haddii weysaysan maayo oo qubaysan maayo oo isdaahirin maayo, waa qof jir ahaan iyo caqli ahaan iyo xagga bulsho ahaanba u dhintay. sidoo kale walaalayaal ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa buu inoo soo dejiyey. haddaba innagaa shareecada u baahan ee iyadu inooma baahan. sidoo kale kitaabkan ilaahay inoo soo dejiyey subxaana watacaala iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ku dhaqankeeda innagaa u baahan. haddaba waxaan walaalayaal risaalo cod dheer aan ku sheegaya in cid kasta oo ka hor timaado shareecada ama kitaabka diidda ama sunnada diidda ama waxyaabaha ilaahayna amrayo subxaana watacaala diidaay in ay khasaaro iyo hoog iyo cadaab ay ku dambeynayso. shareecadana aysan wax ay yeeli karto haba yaraata ma jirto. ilaahay subxaana watacaala cirkan lahaa ee dhulkan lahaa wax kasta leh baa ilaashanaya oo 1442 sano bay laga joogaa. intaasoo dhan ilaahay baa ilaashanayay, inta dambe oo dhanna ilaahay baa ilaashanaya. cid kitaabka ilaahay wax ka bedeli karta, cid sunnada wax ka bedeli karta iyo cid diinta wax ku samayn karta ama wax ka bedeli karta haba yaraata ma jirto. isaga unbaa aakhiradiisa iyo adduunkiisa ku waayay. saas ayaa hadda waxaa soo baxay mulxidiin, dad diintii diidan oo hadda Soomaali yeeshayba, oo Soomaali badanoo kiristaamooday, Soomaali badanoo mulxidiin laa diiniyiin noqday, Soomaali badanoo qur'aaniyiin noqday oo sunnadii diidan. kulli haada waxaan u sheegaynaa dhammaantood in aysan shareecada xabad gaarsiin karin ee iyagu ay aakhiradooda ku waayaan
adduunkoodana ku waayaan. U fiirso qofka mulxidka ah adduunkana khayr kuma haysto oo cid jecel ma jirto, bulshada o dhan way ka cararaysaa. cidda ilxaaday oo mulxidka ilxaadka la haysato un bay istiqaanaan, cid kaloo rabtaa ma jirto. aakhirana weligii naar ku jiraya inuusan mirir laga qaboojinay. marka adduunkiisi iyo aakhirihiisa isagaas dhaafiyey, shareecada wax uu yeeli karo ma jirto. marka waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo mulxid noqotay ama qur'aaniyiin noqotay oo sunnada diiday ama diinta wax ka sheegaysa inuu ilaahay ka baqdo subxaana watacaala oo diinta usoo noqoto, ay ogaato inaysan diinta waxba gaadhsiin karin, iyaga naftooda ay gubis iyo dilis ku wadaan naftooda. cid kasta oo ku haminaysa shareecada rabta inay ka tagto halka aadana waxaa u sheegaynaa inaysan khayr kusii soconay, shar iyo cadaab iyo jahannama iyo saciiro inay ku waaraan usii socdaan. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. waxaa isku ognahay ku dhaqanka diinta iyo ilaalinta diinta shareecada islaamka. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum.